بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta. waxaanu rabnaa barnaamijkan qaybtan inaynu diiradda ku saarno wararkii ugu dambeeyay xaaladda marinka Gaza, gumaystaha oo maanta burbur xoogan ku wada qayb ka mid ah marinka, tiradada oo la dilay, dhaawac fara badan oo jira, gumaysiga oo meelo badan ka sii socda, iska caabinta oo iyaguna dhigaya casharo adag, masaxba qiyaasaha Israa'iil ee ku saabsan qabsashada magaalada Gaza, maxaase laga filan karaa dhanka militariga. barnaamijka ayaynu ku falanqeynaynaa iyo weliba sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku galad sheeganaya ama ku abaal sheeganaya Israa'iil lehna inta aan u qabtay Israa'iil ma jirto cid u qabatay. barnaamijka qaybaha dambe ayaan qodobkaas ku eegaynaa soo dhow. nagu soo biir muuqaalka share gareey, aragtidaada waa muhiim, qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanid. fadlan daawade haddii lagu joogo waqtiga salaada fadlan soo gudo waajibka alle aan ku salino nabigeena maxamed madgelin xaliis korkiisa ha ahaatee. barnaamijka ayaynu gudagalaynaaye marka laga soo tago intaasi dhiirigelinta aanu marka hore ku bilowno 28 qof oo Falastiini ah ayaa geeriyootay tan iyo waa berigii hore maanta oo Talaado ah kadib duqeymo iyo weerar culus oo Israa'iil ay ka fulisay marinka Gaza, gaar ahaan xaafadaha magaalada Gaza halkaas oo 24 Falastiiniyiin la dilay ama lagu dilay. ila caafimaad oo ku sugan isbitaalada Gaza ayaa sheegay in dadka dhintay sababtoodu ay ahayd kadib markii la duqeeyay ama Israa'iil ay duqeysay goob ay ku sugnaayeen dadkaas, waxaana la sheegay in waxyeello ay ka soo gaartay dad kale oo dhaawac badan ayaa jira. meesha la weeraranay waa goob dadkan raashiin ay u doonteen subaxnimadii hore ee maanta. sidoo kalena wariyaha Al Jazeera ayaa sheegay in ciidanka gumaysiga Israa'iil ay qarxiyeen dhismayaal ku yaala Jabaliya waqooyiga marinka Gaza. isbitaalka Al-Shifa ayaa sheegay in 9 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur ay ku dhinteen kadib duqeyn Israa'iil ku qaaday guri ku yaala xaafadda Tal Al-Hawa koonfur galbeed magaalada Gaza. hay-adda gargaarka degdega ah waxay sheegtay in 4 qof lagu dilay duqeyn Israa'iil ku qaaday 2 guri oo ku yaala xaafadda Sheekh Radwan waqooyiga magaalada, halka ay tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawacmeen. magaalada Khan Yunis koonfurta Gaza, ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka Nasir ayaa sheegay in 5 Falastiiniyiin ah oo raadinaya gargaar lagu dilay rasaasta ciidamada gumaysiga ee xaafadan ama magaaladan. sidoo kalena gargaarka degdega ah iyo ilaha caafimaadka ee Gaza waxay sheegeen in dhaawacyo ay ka dhasheen duqeyn Israa'iil ku qaaday teendho dadku ay ku sugnaayeen, gaar ahaan barakacayaal ku sugnaa deegaanka koonfureed ee Al-Mawasi ee Khan Yunis. Israa'iil ayaa wada gumaysi aad u xoogan oo ay ku hayaan dadka shacabka ah maalin walbaana waxaa la dilaa tiro intan ka badan, iyadoo taasina aysan jirin cid ka hadlaysa. dalalkii carabta ahaa ee ka agdhawaa Falastiiniintana indhahaas ayay ka daawanayaan, halka shacabka Falastiiniinta raashin ama guri yar oo ay cunaan ay u marayaan dhibaatadan aadka u xoogan. carabta maalin walba waxay ku dul dabaaldegaan neefaf waaweyn oo ay gowracdeen oo ay si xaraga leh u cunayaan, oo xitaa damiirka aanu siinin inay xishoodaan oo waxooda ay qarsadaan. geesta kalena wararka ka imaanaya gudaha Gaza waxay sheegayaan in iska caabinta Falastiiniinta maanta ay u suura gashay, gaar ahaan gelinkii hore ee maanta, inay gubaan 2 ka mid ah gaadiidka loo yaqaano cagafta, kuwaas oo la sheegay inay burburin ka wadeen qaybo ka mid ah Gaza, waxaana ay la beegsadeen madfaca loo yaqaano Al-Yaasiin 105. halkaasina waxaa la xaqiijiyay in 3 askari ka mid ah ciidamada gumaystaha ay ku dhinteen, sidoo kalena dhaawac 4 kale ayaa la sheegay. inkastoo Israa'iil weli si rasmi ah u sheegin. Israa'iil badana marka khasaare uu soo gaaro waxay yiraahdaan markii laga dilo 20 ama 30 askari oo kale waxay yiraahdaan hal sargaal ayaa naga dhintay, sidoo kalena 5 ayaa nalaga dhaawacay, taasoo ah inay qariyaan xaaladda dhabta ah ee khasaaraha kasoo gaaraya gudaha marinka Gaza. sidoo kalena waxay diidan yihiin shacabka Israa'iil ee careysan inay caradooda sii xoogaysato mar haddii ay ogaadaan in caruurtooda sidan loogu dhex gumaadayo gudaha marinka Gaza. shacabka kaliya waxaa loo sheegaa in lala dagaalamayo argagixiso, mar walbana guul laga gaaray. tusaale hal qof markii ay dilaan oo magac leh sida dhimashadii ama dilkii Abu Cubayda oo kale, warbaahinta Israa'iil oo dhan ayaa cirkaasi geysa, waxaana laga dhigaa in la dilay 1,000 hogaamiyaal oo kale, iyada oo Abu Cubaydana hadalkiisa oo kaliya uu u dhigmay gantaalada plastiga ah ee dunidu ay adeegsato. yacni halka mar uu hadlo Israa'iil oo dhan ayaa gilgilinaysay, xitaa taageerado dadka taageera ama dalalka taageera ayaa walwal iyo cabsi xoogan ay soo wajahaysay.
marka iska cabintu laftoodu maalmahan ma sharyara oo waxay wadaan dadaal xoogan iyo sidoo kale inay iska difaacaan ciidamada gumaysiga meel walbo ay joogaan iyaga oo wax badan laftoodu ka bedelay qadida dagaalka iyo qaabka ay u dagaalamayaan waxaana la arkaa iska cabinta oo guryaha ugu dhex daadanaysa ciidamada gumaystaha iyo godadka ay difaaca ka dhiganayaan halkaas oo iyaguna waxyeelo xoogan ay ku gaarsiiyaan dhinaca kale bal aynu eegno masaxba qiyaasaha Israa'iil ee ku saabsan qabsashada magaalada Gaza maxaase laga filan karaa dhanka militariga qabiirka military Colonel Nidal Abu Zaid waxa uu sheegay in qiyaasaha ciidanka gumaysiga Israa'iil ee ku saabsan qabsashada magaalada Gaza aysan sax ahayn isla markaana aan lagu dhisin qiimeyn sirdoon oo dhaba isagoo saadaaliyay in ciidamada Israa'iil ay ku dhex qasmi doonaan gudaha magaalada Abu Zaid isagoo ka hadlayay qaybta falanqeynta militariga ee kanaalka Al Jazeera waxa uu sheegay in qiyaasuhu iskhilaafsan yihiin marka la eego muddada howlgalka ciidanka gumaysiga waxay ku qiyaaseen inuu socon doono 1 sano oo buuxa halka heerka siyaasadeedna uu ku qiyaasay 3 bilood oo kaliya sidoo kale qiyaasaha qasaaraha dhanka askarta ama dhanka bini'aadanimada ma aha kuwa saxa iyadoo khabiirku ku saleeyay hadalkiisa weerarkii ugu dambeeyay iska cabintu ka fuliyeen xaafadda Al Zaytun ee koonfurta bari magaalada Gaza kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac arrinta la xiriirta marka kanaalka 13 Israa'iil waxa uu sheegay in qiyaasaha ciidanka muujinayaan suurtagalnimada dhimashada 100 askari inta lagu guda jiro howlgalka military ee qabsashada Gaza kanaalka waxa uu intaasi ku daray marka in ciidanka uu ku dhaqaaqayo howlgalkan magaalada Gaza isaga oo aan rumaysnayn wax faa'iido ah oo ka imaan doonta iyada oo hay'adaha ammaankana ay la wadaagaan isla fikirkaasi intaas waxaa dheer ciidanka gumaysiga waxa u baahan yahay waqti si loo soo waco ama loo xaadariyo ama furunta dagaalka loo keeno 60,000 oo askari oo keeda halka sharciga qorista Israa'iilna uu dhigayo in muddada ugu yar ee qoristu tahay 1 bil iyo bar sida uu sheegay Abu Zaid kanaalka 12 Israa'iil ayaa hore u sheegay in ciidanka uu bilaabi doono talaadada qorista 60,000 oo askari oo keeda si ay isugu diyaariyaan sii wadista dagaalka magaalada Gaza sidoo kalena kanaalka waxa uu sheegay in marka hore la wici doono 5 guuto oo keeda oo ka kooban 15,000 oo askari kuwaas oo lagu fidin doono xuduudaha Lubnaan iyo Suuriya iyo sidoo kale daanta galbeed si loogu fasaxo ciidamada joogtada ah dagaalka Gaza khabiirka militariga waxa uu sheegay in iskhilaafka tirada iyo qiyaasaha uu sharaxayo sababta heerka ammaanka iyo ciidanka Israa'iil ay ugu talinayaan in loo dhaqaaqo wadada wadaxaajoodka si loo gaaro heshiis isweydaarsi maxaabiis maadaama ay iyagu ugu wanaagsan yihiin fahamka xaaladda cakiran iyo qasaaraha haddaba taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir ayaa wajahaya 3 dhibaato oo isku dhafan kuwaas oo kala ah waxa la doonayo waxa la farayo iyo sidoo kale waxa lagu qasbayo waxa laga doonayo Zamir waa inuu fuliyo howlgal military oo uu gaaro yoolal halka lagu qasbayo tirada askarta kaydka ah ee aan suurtagalka ahayn in la diyaariyo maadaama ku dhawaad 40% ay ka cagajiidayaan inay ku biiraan adeega isla markaana aanu awoodin inuu isla mar kaliya qaabilo tiro intaas la eg qabiirka militariga waxa uu saadaaliyay in xaaladan ay keeni doonto in la saaro xisaab cusub oo ku saabsan dagaalka taas oo ciwaankeedu uu noqon doono in dagaalka uu yeesho xisaab siyaasadeed halkii uu ka ahaan lahaa mid military taasoo horseedi doonta jahwareer weyn iyo ciidanka gumaysiga oo ku qasmi doona xaaladda Gaza wargeyska Haratis ayaa dhawaan sheegay isagoo soo xiganaya ciidanka gumaysiga in 900 askari iyo saraakiil la dilay tan iyo dagaalkii Duufaanul Aqsa ee bilowday 7 Oktoobar 2023 haddaba daawad maxay adigu kula tahay aragtidaad ku saabsan howlgalkan in uu dhaco iyo sidoo kale in guul laga gaaro qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsanidee dhinaca kalena aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in dagaalka Gaza uu dhaawacayo Israa'iil taas oo ku qasbi doonta inay soo afjarto wuxuu tilmaamay in Tel Aviv ay lumisay saameyntii iyo awoodii hore ay ku lahayd saaxadda siyaasadda Washington sababa la xiriira dagaalka weli ka socda marinka la go'doomiye Gaza Trump oo wareysi siinaya mareegta Daily Caller ee Mareykanka kaas oo la baahiyay fiidnimadii Isniinta waxa uu yiri waxay ku qasbanaan doonaan inay soo afjaraan dagaalkan waxaana hubaal ah in uu dhaawacayo Israa'iil wuxuu intaas ugu daray Israa'iil waxay guul ku gaari kartaa dagaalka balse ma qasbayso saameyn dhanka xiriirada caalamiga ah waana taasi waxa waxyeelada u keenaya Trump ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ahayd kooxda loobiga ugu awoodda badan ee uu arkay 15 sano ka hor taas oo xilligaasi si buuxda gacanta ugu haysay Congress-ka balse hadda waa ay lumiyeen taas ayuu yiri
isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu intaasi ku daray qofna wax badan uma qaban Israa'iil intii aan anigu u qabtay oo kale oo ay ku jirto weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday Iran kuwaas oo beegsaday goobaha nuclearka intii uu socday dagaalkii 12 maalmood qaatay ee u dhaxeeyay Tehran iyo Tel Aviv ayuu yiri waxaa xusid mudan marka in Israa'iil oo taageero ka heshay maamulka Trump ay tan iyo 7 Oktoobar 2023 sii wadaan dagaal baabi'in guud ah oo ka dhana Gaza kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawac in ka badan 203,000 oo Falastiiniin ah intooda badan caruur iyo dumar ayay yihiin waxaa kale oo jira in ka badan 9,000 oo la laayahay 100,000 oo barakacyaal ah iyo sidoo kale macluul nafta ka qaaday dad badan aan u duceeyno ugu dambeyn daawade walaalaheen Falastiin aragtida waa muhiim qaybtaas oo committee ku roomaadin barnaamijka xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.